xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi oo shir jiraayad ku qabtay xafiiska uu ku leeyahay magaalada Burco ayaa si faahfaahsan uga warbixiyay safar qaatay muddo 2 bilood iyo 18 casho ah oo kulamo kala duwan oo kula qaatay qurbo-joogga reer Soomaaliland ku dhaqan wadanka boqortooyada Ingiriiska. xildhibaan Mubaarak Yuusuf Cilmi Bidhi waxa uu sheegay in jaariyadda Soomaaliland ku dhaqan wadanka Ingiriiska uu kala hadlay sidii dib loogu dhisi lahaa madaarkii diyaaraduhu ka haadi jireen ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale mashruuca dhismaha wadada isku xidha Oodweyne Togdheer iyo sidoo kale Maroodi Jeex. sidii aan la socoteen waxaan safar kaga maqnaa magaalada muddo 2 bilood iyo 18 casho waxaan shirar iyo kulamo la yeeshay jaariyadaha Soomaaliland ee UK si gaara jaariyadda gobolka Togdheer. marka hore waxaan u mahadnaqayaa oo iga mudan inaan u mahadnaqo oo ujeedada ugu weynaan u qabtay shirkaygan jirayd bay tahay mahadnaq aan u mahadnaqayo dadkii sharafta badnaa qiimaha badnaa ee sida qiimaha badan ee sharafta badan ee milgaha leh ee jacaylka u qabaan dalkooda iyo gobolkooda ii soo dhaweeyey. meel kastoo aan tago UK iyo kulan kastoo aan qabto iyo shir kastoo aan galaa waxa ugu weynayd ee lagala hadlayay wuxuu ahaa madaarka Burco iyo wadada Oodweyne. markii aan halkan imi waxaa runtii aan nasiib u helay inaan la kulmo wasiirkii wasaaradda horumarinta iyo wadooyinka iyo gaadiidka mudane Cabdullaahi Abukar oo wasiirka ku matala ama wuxuu saaray madaxweynuhu madaarka iyo wadooyinka. inaan la kulmay magaalada Burco kula kulmay waxa uu ii sheegay markaan u sheegay fariintiinii aan u sheegay aan u gudbiyey qurbo-joogga in dhibaatada baahida ugu weyn iyo dhibaatada ay runtii ka cabanayaan ay tahay madaarka Burco wadada Oodweyne. waxa uu sheegay wadadii Oodweyne in la bilaabi doono 2020 November inuu la bilaabi doono. wuxuu kaloo ii sheegay madaarka Burco in loo hayo lacag $5 milyan isagana sidii loo bilaabi lahaa 2020 la bilaabi doono dhismihiisii oo lagu bilaabi doono $5 milyan oo loo hayo madaarka Burco. waxaase uu ii sheegay wasiirku inay ka badan tahay qarashka ku baxaya lacagtaas $6 milyan. marka maadaama lacagtaas $5 milyan iminka loo hayo oo lagu bilaabayo waxaan runtii anigu og dhibaatada idinka haysata hadaatiin reer Togdheer iyo gobolada barigaba safarada ku timaadaan Soomaaliland. waxaa haddaba taas iyadoo jirto aan ogahay aan dhibaato idinka haysto madaarkii Hargeysa oo ka fog aad uga fog gobolka Togdheer iyo gobolada bariga. madaarka wasiirku wuxuu yiri waa la bilaabay $5 milyan idinkuna hadaatiin qurbo-joog gobolka Togdheer iyo gobolada bariga iyo reer Soomaaliland inaa u diyaar garoobaan wixii idinkuna ka qayb qaadan lahaydeen madaarka Burco inaa u diyaar garoobo marka la bilaabo madaarka. xildhibaanku hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday in qurbo-joogga u dhalatay Soomaaliland ee gobolka Togdheer ay ballan qaadeen in isbitaalka weyn ee magaalada Burco ay keeni doonaan gaadhiga gargaarka degdega ah ee ambalaaska iyo sidoo kale dawooyin kala duwan. waxaa runtii aan u mahadnaqayaa si gaar ah ugu mahadnaqayaa Leyla Cabdillaahi oo gabar muwaadinada oo in badanna deegaano gobolka Togdheer wax badan ka qabatay oo gacanta ku haysa mashruuca ama hay'adda khayriga leh Madiina Project oo la shaqeysa charity anigu xogool oo had degmada Burco iyo gobolka Togdheer xagga ambalaasyadu aad bay ugu yariyeen caasimadii labaad ay tahay gobolka Togdheer ee caasimadii labaad ee Soomaaliland Burco iyadoo tahay haddana runtii ambalaas oo aan runtii waliba dayactir u baahan baa jooga iyo hal ambalaas oo dhakhtar bareefada jooga dhakhtar baaxeen ayaa magaalada dhan Burco caasimadii labaad jooga. marka anigu og baahay in loo qabo
waxaan runtii aan ka howlgalay in ambalaas iyo wixii loo soo heli kara magaalada loo soo helo waxaa markaa ilantaa Leyla Cabdilaahi ay soo heshay ambalaas marka ambalaaskaasina nooligiisiiba la ururinayaa markuu soo gaaro halkan insha Allah waxaan runtii waa fududayn doonaa sidii halkan dekada loogu saar lahaa kadibna insha Allah waa ambalaas uu leeyahay gobolka Togdheer marka Leylana waa u mahadnaqaynaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan kaloo isna u mahadnaqayaa ninka la aadan dheer ee la dandegan oo isaguna dawooyin runtii igu soo dhiibay oo iyaguna ay soo socdaan dawooyinkaas oo ugu talagalay dadka madaxa wax ka qaba dimirka ugu dambeyn xildhibaanku waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay inuu hirgeliyo ballanqaadadii uu sameeyay gobolka Togdheer muddadii ku jiray ololaha jagada madaxweynenimo waxaan rajaynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi anigoo runtii intii uu joogay 2 sano wax badan uu ka qabtay dalka khaasatan gobolka Togdheer waxaan rajaynayaa inay ballanqaadadii ku jiray ama buugga xisbiga ku jireen ama aanu ballan qaadnay anagu intii halkan joognay waxaan rajaynayaa inay sidoodii u fuli doonaan oo ballanqaadadii fuli doonaan oo madaarka Burco runtii iyo wadadoodu inoo ku jireen Shucayb Xasan Dheere telefishinka Sahan Burco